Ma ogtahay caanow kibirka iyo islaweynida in ay ka hoos mariyaan asaagaada ma dareysan tahay caanow qofka kibirka badan inuu la mid yahay qof buur saaran markaas uu aaminayo inuu yahay kan dadka ugu wanaagsan ugu saxsan ugu cilmiga badan ugu aqoonta badan iyo uguna aqliga badan ma ogtahay caanow islaweynidu inay tahay dhaqan aad u xun kaas oo dadka qaarkii dhaqan ka dhigteen sidaas daraadeed waxa haboon in qof kasta maskaxda ku hayo waxyaabaha keeni kara kibirka hadii uu qofku wax haysto amaba uusan haysanba caanow maankaaga geli in aad la siman tahay dadka kale markaasna dadka si wanaagsan ula dhaqan waxaadna ula dhaqantaa sida adiga jeceshahay in lagu dhaqmo noqo mid dadka ku caawiya in uu siiyo aqoontiisa xoogiisa naxariistiisa iyo wanaagiisa adduunyadu waxa soo maray dad fara badan oo kibir iyo islaweyni haadan dheer ka turtay taariikhda waxa ka guuxa dad ku cambaxay kibir dadkii ay la noolaayeen u arkay xasharaad yaryar oo iyaga loo abuuray qaar baa sheegtay inay yihiin maskaxda dadka kale qaarka kale ayaaba isu arkay inay yihiin dad aan laga maarmin la'aantooda aan la noolaan karin qaar baa waxay sheegteen ilaahnimo sida fircoon oo kale qabka kibirka isqadqaadka istatuska yasmada xishood la'aanta waa calaamado ka turjumaya qofka lagu arko in uu yahay doqon waxa xaqiiq ah qofka cadeystay arrimahaas aan kor ku soo sheegnay in uu ku dambeyn doono cawaaqib xumo qofka ilaahay aqliga siiyay kuma arkaysid waxyaabaha islaweyninka iyo kibirka hadaba ha noqon mid maalinku wax hela isqadqaada isweynaysiiya dadka istusa inuu wax haysto laakiin noqo mid markasta dadka la siman la dhaqan ah la dabeecad ah markasta ay u siman yihiin hadduu wax haysto iyo hadduusan waxaysanba anigu waa Cabdiqaadir Nuur Asool halkan waa Isha Aqoonta channel Isha Aqoontuna waa goob loogu bartay aqoon in laga durdurto waad mahadsantihiin dhamaantiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو كلنتا كلمينو باي الله يهي كهر تابتا ادرسكا iyo flow iyo love waa idin wada jeclay dhamaantiina naftayda adiga aan kula hadlayaa qof taageerayaasha kamid ah haduu message ku soo diro assalaamu calaykum ku soo yiraahdo si kasto mashquulaad u tahay jaanis kasta yaani haduu ku weeriyahay waa ina taageerayaashaada aad fursad siisaa wa calaykum salaam ku dhahdaa laakiin say nafteedii intaad wa calaykum salaam aad qori lahayd ka waran bal nafteedii hadii aad video aad qafkaas aad ugu soo jawaabtid soo nacasnin maahan nafteedii midaas sameeyeen hadaad noqotid caan hadartan caan saasamatid hadaad noqotid caan qaar ha noqonin wadada ay qaadin nafteedii waan kula talinayaa waxa wanaagsan samee okay dadka qaar camal ha noqonin okay waan ku jeclahay kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Nuur Asool oo la hadlay naftiisa dhammaan baraha bulshada dadka isticmaala walaalayaal kibirka waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh